Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal ama daawadayaal kusoo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulmay madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka. Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarka taliyaha ciidamada AMISOM iyo taliyaha ciidamada AMISOM oo goordhaweed gaaray degmada Dhuusamareeb. Wadahadallo wax ku ool ah kula yeeshay magaalada Yokohama ee dalka Jabaan madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka ee qaybta Afrika. Wadahadalladan ayaa diiradda lagu saaray dadaalada xukuumadda ee la xiriirta dib u habeynta maaliyadda, deynta iyo cafinta, iyo sidoo kale loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta wanaagsan ee haatan ka dhexeysa dowladda Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka. La yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka ee qaybta Afrika ayaa waxaa ku wehelinaya wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Dr. Nuur Diiriye iyo xubno kale. Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalka uu maanta ku yimid Dhuusamareeb. Taliyaha guud ee ciidamada howlgallada AMISOM Wasiir Ducaale ayaa sheegay in socdaalka taliyaha iyo wafdigiisa la socday uu ku saabsanaa sidii ay AMISOM iyo dowladda uga wada shaqayn lahaayeen sugidda amniga deegaanada Dhuusamareeb oo uu lagu wado in howlgallo dhowaan uu ka furmo shirka horudhaca Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. Maanta halkan waxaa inagu soo booqday taliyaha guud ee ciidamada AMISOM iyo saraakiil la socota, waxaana ka wada hadleen sidii ay AMISOM ay gacan uga geysan lahaayeen sugidda amniga deegaanada iyo shir dhowaan la filayo inuu ka furmo Dhuusamareeb iyo weliba habka wada shaqaynta labada ciidan, ayuu yiri wasiirka amniga Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in ciidamada ay rajeynayaan in ay kaalin weyn ka qaataan horu socodka Galmudug si loo dhiso Galmudug oo mideysan iyo sidoo kale qabsoomidda shirarka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug. Sunna wal Jameeca ayaa u diidanay deegaanadeeda ay ka arrimiyaan in la keeno ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa AMISOM, balse haatan waxay u muuqataa in arrintii hore ay kasoo dibceen ururka Sunna wal Jameeca. Waxaana la filayaa in dhowaan la geeyo ciidamo AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya si halkaasi ammaanka looga shaqeeyo. Taliyaha guud ee howlgallada Midowga Afrika AMISOM Tabu Yelma iyo saraakiil ka socota ayaa goordhaweed gaaray deegaanada Dhuusamareeb ee xarunta u ah dowlad goboleedka Galmudug. Taliyaha waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku soo dhoweeyay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana loo gudbiyay xarunta looga arrimiyo Galmudug ee Dhuusamareeb, halka uu kulamo kula leeyahay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Dhuusamareeb. Taliyaha ayaa la filayaa in uu kulan la qaato madaxda ugu sarsareysa ee Sunna wal Jameeca, iyadoo wadahadallada ugu badan ay quseyn doonaan arrimaha nabadgelyada Galmudug, gaar ahaan degmada Dhuusamareeb oo lagu wado inuu ka furmo shir dib u heshiisiineed. Socdaalka taliyaha ayaa imaanaya kadib khilaaf la sheegay in uu soo kala dhex galay dowladda Soomaaliya iyo ururka Sunna wal Jameeca, inkastoo wasiirku arrimaha gudaha uu sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay labada dhinac.